الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتنا وقالي ميل والبا الدنيا كجوكتان سلام كلي لاب أيان هودين سومرينايا أنا أمن حبيتي channel كان قدام نسين أمن حبيتي channel ما شاء الله. أصحابي حالي إلا حد وحالسكو وضع حفصة إن إيدي مطي حفصة واتي واي حفصة لبد قبدوت لا سنة سدح قبدوت واي لبا قبدوت وحاواي حفصة محمد لقمان إي حفصة عبدوهاب واي حفصة عبدوهاب أيا قبر دمتا حفصة محمد لقمان وينوشاي حفصة عبدوهاب واكنا نينكي تكسيق وضي واكنا information كيسي نينكا ونينكا قبر وضي قبرداس أيا قبر دمتي الله يا رحمة walaalahayga qaaliga islii aad iyo aad ay u ximaatay gabdhahan Soomaali meel walba ay joogan ku Nairobi joogo ku dalka ka maqan waxaan leenahay walaalayaal adduunka hadda la joogo kii relative atiin ayaa la isku aaminaynin maadaama qof kala bas ka dhaaf waxaan leeyahay gaariga raacaysiin haddii family-ga ka ahayn oo gaari aad uba ama taxi ay u yahay waxaad fiirinaysaa marka adiga aad galaysid aad meesha aad galaysid gaariga lambarkiisa ku soo baxayo lambarkii ayaa screenshot ka qaadanaysaa qof friends-ka ama qof cidi joogo hooyada ha ahaato haddii naag la qabo aad tahay odigaaga u dirta ama walaalahaaga qofka u dirtid waa u diraysaa number biletkaas ayaad u dirsanaysaa oo magaci ninkii lambarkiisna hadduu markaasay ayaa screen ku soo wacaya qof markuu ku soo waca lambarkii screenshot ka qaadaysaa waa u diraysaa marka taas ayaa mar walba laga baaran degaa marka walaalayaal gaariga adoo lambarkiis aad aqaanin ha iska raacin dhowr gabdhood ayay ku dhacdisli marka walaalahay waxaan leeyahay iska ilaali mid labaadna lift wiligaaga iska ilaali lift bedelka qaadan lahayd afadaali iska lugay qof haduu kula socdo lugay lift wiligeeda tan lasku dhaco waa taas meel walba aad joogto lift iska ilaali walaalo hor ii qaat bafaad iska ilaali taas ayaa leeyahay marka tan lasku dilaayo waa taas marka walaalahayga gabdhaha Soomaali waxaan leeyahay meel walba aad joogtaan mid saddexaad aad iskaga taxdiraysiin waligaaga jeebkaaga lacag ha ku qaadin haddii ku wadid xataa lacagta aad wadid xataa wax yar inay ahaato waayo kaba buud hadaa wadati soksigaaga gasho boorsadaada waxba ha gashanin waayo kabahaas mid qofki inuu kaba kaa siibo ma ahane kaama soo bixi kara weligaa ayaa lagaa dareemin in aad lacag wadato haddii aan leedahay haddii aan lahayn sida oo kale hadda adoonta Kenyaanka ba aragteen oo maleeyahay ninkooda ugu taajirsan lacag inuu leeyahay kama muuqato kama dareemayso laakiin waxa arkaysaa guriyahana saasan kan asaaska laakiin anaga Soomaali saa u naano Allah maanta 10 kun haday jeebkaaga ku jirto 10kaas ku waa la arkaya marka walaalahayga waxaan leeyahay taasna xal iska taxdiro iska ilaaliyo ka taxdiro ma fahanteen lacagta jeebka lagu wado iska daaya mid afraad waay naag saaxiibtinimo ma gasho waa baay hadda Xafso Maxamed Luqmaan saaxiibadeed waay qofka hadda shirqoolay hadda anaga u haysano investigationka marka insha Allah xaqiiqda dhabta ahana maalinkii ayada la soo hela ayaa wixii xaqiiq dhab ah ay soo gudbinaynaa channelka hadaa ku cusub tahay waxaa la saaraysaa like-da nooga dadaal shaati guduud kale noo saar si aad u ogaato waxyaabaha soo kororo dhibaatada mid labaad Soomaali waxaa way saaxiibada ayaa hoggaan qodayso ma fahanteen waligaa saaxiib ma gasho arrinkan dhowr jeer ayuu soo noqday gabdha saaxiibood wax ku sameeyaan dhowr jeer ayuu soo noqday ma fahanteen naag saaxiib waligeed ma gasho adiga naag saaxiib sheegaysa qaraabadaada ayaa la iska ilaaliyaa maxaa ay ka qaldan saaxiib ma isku dhiibaysid qaraabo ayaa la iska ilaaliyaa naag saaxiib ma gasho saaxiib waxaa la noqotaa naag la qabo hadaa tahay ninkaaga saaxiib la noqo wax walba information asaga la socodsi asaga advice labadiina ma ahana saaxiib kala iska dhaafo ayaan leeyahay mid shanaadna tan shanaadna waxaan leeyahay gabadha Xafso Maxamed Luqmaan xalay soo dhigay videogeed gabadhaas may dhimanin way noosha still laakiin waa raadinooyaa raadiskeeda ayaan ku dawla jirnaa
laakiin in ay nooshahay ayaan ii sheegaya xafsooyinka ayaa badan alxaq masaajidkana waa la aadimoyaa raali noqdo aadaanka dhagaha lagu raaxistaa marka asxaabay waxaan leeyahay ha isku qaldina gabdhaha labada isku magac waay laakiin aabooyinka ay kala duwan yihiin ma fahanteen marka waxaan leenahay adduunka hadda joogo wuu hallaabay ilaahayna waxaa ugu baryaynaa iyogu soo duceeyay gabadha walaashay ah inuu ilaahay soo sahlo inuu ilaahay gacan xasid ka soo saaro inuu ilaahay gacanteena kusoo celiyo noogu soo duceeyo ducada waa xagiin adduun unbaa waxa laisku taraa aakhiro wuxuu taraysa malaha muslimiin saa u nahna noo soo duceeyo insha allah annaga mar walba u duceynaa oo u tukanaa insha allah ilaahay ha soo sahlo ilaahay iyadoo nabad ah aa ku soo celiyo marka walaalahayga waxaan leeyahay taxifaya gawaarida liftida ah wixii dhan iska dhaafo walaalahayga taxifaya ama uba midka qaadanaysid waa in aa ka qaadatid screenshot aa qof adiga kuu soo dhow markaas aa u dirtisa sifa markay kugu dhacdo gaariga number baledkiisa loo soo qabta numberkiisana loo taragareeyo intaas iyo